السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهتدين. إلهو نقدق كواها ننصن تدكنا هنونية دمان تدك الصوماليات برنامج كقفاعو كدقى يسانا راديو بورمي كندا وانا يصومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو مانتوا مالين سبتيا بيشا مارج لابو أفر labiyo labaatan waxaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa waxa buug lagu qoray oo ay qortay maxadka la magac baxay Institute of Foreign Affairs maxadka arrimaha dibadda dalka Ethiopia. buuggan oo la dhigay jaamacadda ku taala Addis Ababa University Kabrehot library-geega buuggan oo ku qoran afka Axmaariga. buugani waxa uu title-ka magaca Ingiriiska ku yahay The Grand Strategy of Two Waterless Bodies. waxa uu ka hadlayaa afar qodob. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee midnimada jecel inaynu dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin maanta gacmaha inay isqabsadaan. barnaamijkana aan raba inuu gaaro madaxda Soomaaliyeed, siyaasiyiinta Soomaaliyeed, aqoon-yahanada, culimada iyo dadka caqliga u saaxiibka ah oo ugu tala galay barnaamijkan. buuggan waxa uu ka hadlayaa arrin la yaab leh buu ka hadlayaa. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan dalka Ethiopia buuggan waxa ay u qoreen ujeedadana afar qodob weeye. afarta qodob leh intaan la gaadhin waxaan rabaa inaan idinka warramo taariikhda labada biyood waxay kaga warramayaan badda cas iyo gacanka ay leedahay dhulka Ethiopia. waxa weeyaan gumaystihii kolkii uu Afrika yimid oo la qaybiyay bay ku leeyihiin gumaystuhu waxa uu gacanta u galiyay gumaystuhu dhulkayagii meelo kale. marka halganka ay ugu jirto Ethiopia ayaa ah labadan marinbadeed ee ah Niilka iyo oo ah badda cas iyo gacanka cadbeed inay la soo noqoto halganka ay ugu jirto buug ka warramaya. marka buugani waxa rabaa dadku qofkii akhriyi kara heli kara Amxaarina uu ku qoran yahay, Ingiriisna title-kiisu uu yahay. waxa uu yaalaa library-ga Addis Ababa University. waxa uu ka hadlayaa afar qodob. afartaa qodob waxaan rabaa inaydin ka faa'iidaysataan oo istiraatiijiga ay ugu tala galeen aynu fahanno si aynu uga hortagno midnimadii ummadda Soomaaliyeed u helo. waxaana Soomaali maanta aynu arkaynaa inaynu u baahannahay good leaders. waxaynu arkaynaa leader and dealer. dadkii Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inagoo victim u ah istiraatiijiyada iyo badda iyo macdanta iyo baasiinka aynu leenahay dadka Soomaaliyeed kana midaysannahay victimkaas oo ina kala garanaynin qofkani uu yahay, laakiin aan Soomaali unu nahay, dad muslimiin oo madowna nahay, gacmo shisheeyana inagula jiraan. haddaba dadka barnaamijka dhagaysanaya buuggan number 1 waxa uu yahay oo ka warramaya falanqaynta taariikhda dheer oo aad u qoto dheer oo ka hadlaysa marin baneedada labada biyood oo ah Niilka iyo badda cas. waa muhiimadda ay u leedahay dowladnimada Ethiopia, statehood Ethiopia weeye. waa number 1. number 2 falanqaynta qotada dheer oo ku saabsan sharciyad daleed iyo tan caalami ee labada biyood waxa kamid ah badda cas iyo gacanka cadbeed. waa number 2. number 3 falanqaynta qotada dheer ee xagga siyaasadda taas oo ka hadlaysa caqabada bulshada dhaqaale ee Ethiopia, xaaladan jugraafiga, siyaasadda biyaha Niilka iyo badda cas, dhibaatada haystay ka iyo istiraatiijiyadeeda. waxa kaloo qaybta afraad ay tahay oo buugku ka warramaya oo ay tahay dareenada istiraatiijiyada, hadafyada istiraatiijiyada. qaybtana waxay ka bilaabmaysaa su'aalo why waqtigan imika loo bilaabay, iyagoo uu macadkani yahay macad aad loo yaqaan oo ah Institute of Foreign Affairs Ethiopia. waxa rabaa dadka Soomaaliyeed buugga waxa ku qoran inay isgaarsiiyaan midnimo iyo walaalnimo ummad Soomaaliyeed meel kastoo joogtana lala yimaado. dadka Soomaaliyeedna uu yahay dad mar walba aan kala maarmayn. xuduuda Ingiriisna aan ku kala tagayna dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad
aan xuduuda kale lahayn ummadda soomaaliyeedna mar walba isku baahan tahay dad walaalo muslimiin aynu nahay dad isku luqada nahay dad isku diidanaynay dad isku midaba nahay haddaba dadka soomaaliyeed waxaan ku dardaarmayaa iyo naftaydaba in aynu ilaahay barino ramadaan oo soo socdana ilaahow ramadaanna gaarsiiye dhammaan dadka barnaamijka gufaaco ka dhagaysanaya raadiyo boorame Somali Karen TV wanigoo tafaqtira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan